muuqaalkeenu maanta cajaa'ib weeyaan. Waxaan kaga hadli doonaa arrinta Booyana. Waan ogahay asxaab fara badan oo idinkeedin ka mid ah in ay isweydiinayaan Booyana miyay dhimatay, sidee ayuu u jiraa, gooskooskan maanaan ku arkin. Waan arkinay xalqadii 188aad in ay iska tuurtay qow aad iyo aad u weyn. Dhaawac miyaa soo gaaray mise sidaa ayay taxanaanka ka baxday. Muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay arrinta xasaasiga ah, waxaana ku qaada dhigaynaa wax waliba oo la filanayo ama dhici doona xalqada 189aad. Soo dhaw daawade kuna soo dhaw muuqaalkeena maanta. Waxaan ka codsanayaa intaan muuqaalka u guda galin in haddaadan muuqaalka like saaran aad like saartay, sidoo kale hadduna channelku subscribe ku ahayn in subscribe aad dhahday. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba daawadaan sii guda gal muuqaalkeena. waxaan wada ogeyn daawad haddaba gabadhii Booyana la dhahayay in xalqadii 188aad waliba dhammaadkeedii in ay dul taagneed qow, iyada oo markan diidan inuu timaado Mudan Cuthmaan ama Baala Haatum ama sidoo kale gabadhii la dhahay Soofiyaaba. Hadaladeedina waxaa ka mid ahaa: ma awoodi in wejigiina aan fiiriyo, in badan waxaan isku dayay in aan idin waxyeeleeyo, intaasoo sarena waxaan caloosha ku soo hayay cuqdad aan u qabay dadkii aniga dhalay ee aabbahay iyo hooyadii ahaa. xilliyo badan ayaan dhaawacyo kala duwan idiin geystay, sidoo kale seerooyin kala duwan ayaan idinka gudbiyey. sidaa daraaddeed, maadaama dadkii iigu dhowaa ee hooyadii iyo aabbahay aniga cadow aan ku noqday, hadda ma garan karayo si aan ugula sii joogo ama sidoo kale si aan markan wejigooda u hor istaago. sidaa daraaddeed waxa ay quman in ay iska kicafisaan anigana halkan aan ku dhinto. gabadha Booyana la yiraahday go'aanka ayay qaadanaysaa. Soofiya meesha way taagan tahay, hana sameynin ayay leedahay, balse dhig jalaq uma siinayso. gabadha la yiraahdo Booyana halka ayay iska tuuraysaa. waxyaabaha ugu badan ee ku soo celcelinaysa waxaa ka mid ah: aniga ma Xaliima nahay, ma Booyana nahay, ma Maryam baa nahay. aniga xog maba xasuustaba, waayo gabadhan waxaan wada ognahay in 3 magac ay leedahay. mar waxaa loogu yeerayaa Booyana oo waxa uu yeeraysa Soofiya, mar waxaa loogu yeerayaa Xaliimo oo waxa uu yeeraysa Baala Haatum, haddana Maryam ayay markale noogu yeerayaan. waxyaabaha gabadhan ay qaadan la'aday waxay tahay: aniga sidan maxay ugu dhacaysaa? maskaxeedana aad waxa uga tambadinaya buuqa gudaheeda kaga furan. go'aanna waxay qaadanaysaa meesha in iska tuurto, halkaas qowgaha ayay haddana iska tuuraysaa. haddaba daawade, haddaba waxyaabaha isweydiintu mudan waxay tahay adigana aad isweydiinaysid ama qof kastoo taxanaan ku xiran isweydiinayo gabadha la dhahay Booyana marka meesha ay ka boodo maxaa dhici doona. gabadha la yiraahdo Booyana meesha marka iska tuurto inuu soo gaaro dhaawac aad iyo aad u daran. balse daawade, dhaawaca uma dhiman doonto gabadha la yiraahdo Booyana ee waa la dhakhtarin doonaa. arrin kale too waxaa jirta aan ku daawanay gooskooskeena 189aad. gabadha la dhahay Faatuma oo markan dhir ururinaysa. ma isweydiisa daawada haddaba qofka dhirta ay ururinaysa gabadha la yiraahdo Faatuma. haddaba daawade ku xisaabtama oo ogow gabadha la yiraahdo Booyana ma dhimatay, waxaa gaar laakiin dhaawacyo aad fara badan oo dambayna waa ay soo kabsan doontaa. haddaba muuqaalo yar oo gooskoosa waxaa jira barta la soo geliyay Maxamed Bosda, kuwaas oo cadeynaya in Mudan Cuthmaan iyo sidoo kale ciyaarkiisa dhammaantood ay midoobi doonaan xalqada 189aad ayna noqon doonaan family dhammaystiran. daawad waxaad ku xisaabtamaysaa sidee ay family dhammaystiran u noqonayaan. waan wada ognahay gabadhii Faatuma ahayd iyadoo ugu maqan gabadhii Booyana ahayd dhir in markaas ay afduubatay gabadhii Bigum Haatum ahayd. haddaba daawad filimku waxa uu ku dhow yahay gabagaba ayuu ku dhow yahay. waana wada ognahay cadow aad iyo aad u badan Mudan Cuthmaan markan inay kordhooban yihiin, balse laakiin xalqada 189aad waxay noqon doontaa xalqad waxyaabo badan kala saarta, sidoo kale tan waji cusub u samaysa taxanaha Kurulus Cusmaan. muuqaalkeena maanta inta ugu muhiimsan waxaa weeye in aan ogaano gabadha Booyana la yiraahdaa in dhaawacadu daran uu soo gaaray lana dhakhtarin doono, balse laakiin gabadhii Faatuma ahayd marka dhirta u soo doontayna ay afduuban doonto gabadha la yiraahdo Bigum Haatum. daawada muuqaalkeena maanta inta ayuu ku saleysan yahay. haddaad ku cusubtahay channelka subscribe saar, barnaamijkan leegna ugu qurxi. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.